magacaygu waa xildhibaan cabdicaziis cilmi cali ka tirsan golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya waxaan soo booqannay magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland waxaan halkan hambalyo uga dirayaa maamulka Jubbaland guud ahaan gaar ahaan guddiga doorashooyinka oo runtii aan dhihi karo waxay qaban qaabiyeen doorasho maaragtay xor ah kaasoo lagu soo xulay xildhibaanada Jubbaland waxaan hambalyeynaa runtii iyadoo wax dhimasho iyo wax dhaawac iyo wax maaragtay dhibaato ka dhicin inay isdoorteen oo iyagu ay isdoorteen runtii waa u hambalyeynaa haddii la yiraahdo waxaan hambalyada u diraynaa dhammaan reer Jubbaland guddiga doorashada dadka kale ee shacabka ah ee shaqaynayay meesha ay soo gaareen inta haddaan ka gudbo waxaan xusi lahaa xildhibaanadii qaranka oo dhan baa idinku soo wajahan waxaan rajaynayaa si ay u dareemaan in loo xoojiyo xidhiidhka maamul goboleedada iyo loo xoojiyo iyo federaalka meesha dejiya xildhibaanada oo boosas badda u jeeda siiya oo soo dhoweeya oo insha allahu tacaala waan hubaa inaad hawshaas qayb weyn ka qaadan kartaan inta kalena ku soo dhiirto si ay suuragal u noqoto inuu qofku xamar joogo iyo inuu Kismaayo joogo ay isku mid ay u tahay waxaan u nimid oo inaan goobjoog ka ahaano doorashooyinka iyo processka doorasho ee halkan ka socda ee shalay qaybtiisii koowaad ay soo gabagabowday qaybaha kale oo isdoorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisana waxaan jecelnahay inaan goobjoog ka ahaano waxaan u soo gurmadnay waxaan ahayn gurmad federaalnimada dalkan nidaamka xukun oo u qaatay waa federaalnimadii ayaa halis ku jirta marka gurmad federaal ayaan kullay anigu isku tirinayaa waayo halis xoogan ayay ugu jirtaa dowladnimadeennina niman shabaab la yiraahdo ayaa halis geliyey federaalnimadii dalku uu qaatayna waxaa halis geliyey bila Soomaaliya madaxda joogta marka gurmadkaas aan nahay dowladda federaalka waxay leedahay hay'ado kala duwan bay ka tirsan tahay saddex hay'adood weeye hay'ad waa baarlamaanka iyo sharci dejinta iyo fulinta iyo garsoorka runtii dowladda federaalka mar walba dadku way isku qabtaan annagoo golihii sharci dejinta ka tirsan oo dowladda federaalkana ka tirsan oo qayb ka ah waxaan runtii raalli ka nahay in hanaanka doorashada oo ay wadaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland iyo sida ay iska jadwalkii degsadeen ay u ilaalinayaan runtii aad bay noo raali gelisay waxaan runtii annagoo dowladda federaalka ka soconnana aan rabnaa inaan halkan ka goobjoog uga ahaano waxaan runtii wax ayaan daraa laga xumaadaa in warqad iska duulaysa hadba wasaaradda arrimaha guduhu iska soo saarto oo aanan ogeyn ma wasaaradda soo saartay mase meel kale ka soo baxday annagoo dowladda federaalka matalayna halkan joogna waxaan wasaaradda arrimaha guduhu haday niyad sami rabto inay maaragtay goobjoog sidaan oo kale uga mid noqoto laakiin warqadaha meelahaas laga soo tuurayo wax macnaana ma leh dastuurka dalkana way ka soo horjeedaa qodobka 20aad wasiirku inuu akhristo iyo xukuumaddiisa iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo madaxweynihiisa inay akhristaan way qodobka 20aad qodobka 120aad ee dastuurka dalkani uu ku dhisan yahay wuxuu awood u siinayaa dowlad goboleedyada dhismahooda awoodooda waxaa leh golayaasha fulinta iyo kuwa sharci dejinta dowlad goboleedka iskale dastuurka dowlad goboleedkana lagu cadeynayaa sidaas ku qoran marka meel dowladda dhexe ay ka soo gali karto arintaasi ma jirto qaanuun la'aanna dalkan lagu xukumi karo sharcigaas ay dalka ku joogaan marka inaan sharcigan u helino federaalnimadana aan dhidibada waa nidaam xukun oo lagu heshiiyay in dhidibada loo taago ayaan halkan u joognaa maalmaha soo socdan u joogi doonaa waxa weeye runtii wax qaldan anagu taageeri mayno waxaan arkaynaa inaan been la isaga warramine in la dhex yimaado meeshan maalmaha soo socdan insha Allah
sidaasay noo noqon doontaa marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay soo dhawayntana loo sameeyey waxaan caddaynaynaa dalkan waa dal federaal ah maadaama uu yahay federaal awoodaha federaalka wuu qaybsan yahay ee dowladda federaalka Soomaaliya leedahay midna waxaa leh dowladda dhexe dowlad goboleedkuna awoodiisa qayb uu leeyahay in la is ixtiraamo oo qolo walbaaba inta ay awoodda ka leedahay ay maaragtay accesskeeda yeelato ayaana qarannimadu ku jiri kartaa waxaan ognahay farafarayntii lagu sameeyey maamul goboleedka Galmudug inuu maantay gabi ahaanba uusan jirin oo meel ku dambeyn doonana aan la garanayn marka si dadaalkii ay sameeyeen reer Jubbaland oo ay wuxuudi adkaysteen waxay suuro gelisay in maanta ay halkan soo gaaraan oo muxuu ahaayeeto baarlamaankii dooran lahaa madaxweynaha oo hadda diyaar yahay annaguna aan goobjoog ka nahay kana marqaati noqonno annagoo matalayna federaalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa xukuumadda federaalka in ma garanaysaa waddankan dib u dhis iyo wuxuu u baahan yahay in la isku hayo uma baahna in dib loo celiyo Jubbaland waxay u baahan tahay in maaragtay lagu dhinac istaago hawsha wanaagsan ay wadaan uma baahna in laga dhinac furo fowdo iyo in dib loo celiyo dhibaatooyinkii Kismaayo ay soo martay dib in loogu celiyo uma baahna marka waxaan taageeraynaa horumarka iyo nabadda iyo hufnaan iyo maaragtay si cadaalad in doorashadu u dhacdo goobjoogna aan ka hana rajeynaa insha Allah taala alxamdulillah waxaan u nimid inaan ka qayb noqono ama aan ogaano كل دورشة جبلان وحنوجو همبلينا مدحويني أحمد مدوبة ما شاء الله تبارك الله هرتك سماي وأمرك يجوه الرسول ماذا وميل آد وقرح بدن وحن قرية إن ويهاي نين آد وسود دالي أو وح بدن وسوق قبطي أو الحمد لله رب العالمين ما أنت ماشي عن فردينا كل هذا ما بديه كري صومالي ميل ماشي نكوينا بقطع ما بديه كري وأوجو همبلينا مدحويني أحمد مدوبة وأنا كفر أحسنها سيدي وحق السعودان مركا الحمد لله رب العالمين إلهي وحان كبرينا سي نظام وهو حق وهو عدالة إن يكون دعضو أو يسوح دباتلي أنا جبلان يسكد عنان إلهي أن كبرينا وحانا ومدى أقو باقينا وحي يريرو دباتوينك إيا هذا الله ودوضو إن جوجيان دادك فرقلين تكو هايانا inay ka daayaan faragelin wax lagu dheefayo malaha hora loo soo arkay inay wax burburisa maahan wax ma dhisto waxaan leenahay meeshan hadii la rabo inay dhisanto in dadkan garab la siiyo nin alla ninkii soo baxana waxaan jeclahay madaxweynahan inuu ku qanacsan yahay haduu asaga soo baxana loogu hambaliyeeyo haduu nin kale soo baxana asagana inuu ugu hambaliyeeyo ayaan ku rajaweynahay dalka dib u dhacay shabaab oo dalka gacanta u galay federaalki ayaa lagu soo duulay oo Soomaali ku heshiisay waad aragteen maamul goboleedyadii naga horeeyay waxa ku dhacay xildhibaanno waxaan idin leeyahay haddii aad rabtaan dalkan inuu god ku dhaco isbeddelkaas adiga u raaricin doontaan haddii aad rabtaan dalkan in la badbaadiyo Jubbaland maanta meesha ay joogto wad u jeedaan waa nabad waa amni elaboorkii halkaan aan soo soconay cid askari oo nala socotay ma jirin barwaaqadan iyo nabaddaanu iskama imaan waa la keenay runtii waxa yaryar oo la tabanayana waa imaan doonaan insha Allah taala war dalka aan dib loo celin waa idin la dardaarmaynaa waa idin la joogaynaa ilaa doorashada ka dhacda gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen madaxweynaha iyo ku xigeenadiisa ilaa laga doortay waa joogaynaa halkan dawladda federaalkana waxaan leenahay sida qaabkay u shaqeyso markaad fiirisid waxaad isleedahay in oo colaadda iyo fawdada inay wax ku helayaan war dalka nabada ka jirta wayna idin ogol yihiin Jubbaland oo imaada garab istaaga murashaxiina joogta cidii soo baxda ayaan garab istaagayna annagu cid gooni aan u wadanaa ma jirto waxaan idin ka rabnaa nabadaas inaad garab istaagtaan reer Jubbaland waxaan leeyahay isku duubnaada dad waraaba ah oo laga celcelinaayo hilba meel yaalo kale ayaa horor idinku soo ah meelba waxa laga leeyahay yur ayaa laga leeyahay iska celiya waad aragteen maamuladii naga horeeyay dhibaatada ay u geysteen aan isku duubnaano shacab iyo maamul cid kasta oo meeshan joogta mas'uuliyadda ka saaran dalkan ma aha Axmed Madoobe aan rabaa iyo Axmed Madoobe aan nacabahay annagu waxaan rabnaa system ka jira inaan sidiis u socdo midna waxna aan laga bedelin aan la faragelin reer Jubbaland ay u noqdaan doorashadooda xor ay u qabsadaan dadkan horarkeena aan iska celino
doorashadeen iyo jadwalkeen iyo sidii looga talagalay ay u socoto waxana soo dhaxgalaya ee rabo annaga inay naqaxiyaan aan iska celinno Soomaalidu waxay tiraahdaa nabada naas la nugula nabada haysanaa waxa kalena waa ku tagi doonaa insha Allah ta'ala aniga waxaan ku darayo oo weyn ma jirto xildhibaan federaal aan ahay oo ka soo baxay Puntland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waqti yar ayaan soo moogahay Puntland fasax baan ahayn maanta inaan dareemayo inaan joogo Puntland ayaan dareemayaa nabadda aan ku soo soconay askar la'aan iyo meelo laga boodayo iyo isbaarooyin inaysan jirin reer Jubbaland marka waxaan leeyahay congratulation ilaahayna waxaan idinka baryayaa dawladdan quruxda badan iyo maamulkan quruxda badan oo maanta jira inuu idin sii socdo marxalad kastana waxaan u maleynayaa inaan idinka experience badan nahay maadaama aan ka soo jeedo gobolka ugu horeeyay maalin bay meesha taagan tahay in reer Jubbaland aysan fiirin maanta kursi aniga kaliya dardaaran kaliya aan rabaa inaan bixiyo inaydan maanta kursi fiirin iyo xildhibaan baa laga tagay iyo xildhibaan baa kan ah Puntland waxay ku dhisan tahay waa isku tanaasul iyo inay fiiriyaan shacabkooda ayaa halka lagu soo gaaray ay maanta dalka dad badan uga hormarsan yihiin marka inuu qofka Jubbalanderka uu fiiriyo inuu isaga meesha leeyahay nabadana in isaga uu leeyahay nin diaspora iyo nin soo meel dheer idinka yimaada dan idinkuma jirto ayadanka leh magaalada idinka wadankan u dhashay qof walba inuu responsibility-ga meeshiisa uu qaato oo uu dareemo inuu Jubbalander yahay oo uu magaalada u dhashay kaliya ina eegtaan markaas xildhibaano oo badbaadin kartaan wax markaas xildhibaano ay ogaan karaan nacam anigoo biri maanta u imaado biri ka tagaya inaydaan ahayn ani intaas experience ayaan maaragtay idinku biirinaya badbaadadu waa kaliya waa shayga kaliya oo aydan qax iyo shido iyo darbi xiran iyo nifel garoobayo raba inuu meel sii salfado oo sii baabi'iyo kaliya uu iska jira ani intaasaan idinku la waaninaya aad iyo aad ayaa mahadsantihiin waan ku faraxsanahay maanta meeshaan xorta ah oo aanu ka baqayn wada xiran iyo wax cabsi ay si jirin inaanu idinla joogno waana idinla sii joogaynaa inta doorashada weyn ay dhacayso waxa weeyaan anagu waxaan xildhibaanadii federaalka xaqiiqdii Jubbaland waxay ka mid tahay meelaha yar ee aan ku faano amniga ka jira iyo nidaamka ka jira markii maxaan ku raadey xaalad waa yar adkaataba aan isniraano kulluga baxsada markii koowaad aan imaado ma ahan waxa weeyaan shacabka reer Jubbaland waxaan leenahay xaqiiqdii waxaad haysataan nabadgelyo waxaad haysataan maamul iyo nidaam aad u wanaagsan nidaamkiina iyo nabadgelyadiina wax walba hayn kaga horeeyaano waxaan ognahay oon goobjoog u nahay xogaalna oo aan nahay dad badan oo madax iyo maxaan ku raahday nooc kala leh in ay samaha iyo wanaagaba ay dib ku tahay oo maxaan ku raahday nabadgelyadan aad ku nooshihiin ay rabaan inay buuq idin ka geliyaan inay meel idin geeyaan ma rabaan waxaan la soconnaa madaxtooyada Soomaaliya iyo dawladda federaalku qaybteeda fulintu maamulada maanta qaar ee dhisnaa halka ay dhigeen maamulo dhisnaa in la kala diray oo cadaadiska iyo pressure inta laga badiyay maanta maamul jira aysan ahayn dadkiina la kala irdheeyay iyo maamulka la kala dirayna sidii la isugu keeni lahaa maanta halkay taagantaad ogtiin galmudug gaar ahaan waxaan leenahay shacabka reer Jubbaland nabadgelyada haysataan iyo dawladdu ku far adeega insha Allah ta'ala annaga ka xildhibaan ahaan goobjoog baan idin la ahaan doonaa ilaa guddoonka baarlamaanka ilaa madaxweynaha laga caleemo saarayo waan joogi doonaa insha Allah ta'ala siday wax u socdaan ilaa hadar raali baan ka nahay wax qurux badan baa socdo goobjoogna uu sii ahaan doonaa insha Allah ta'ala wax qurux badan ay ka soo baxaan ayaan rajaynaynaa anigoo ah Muxyidiin Sheekh Cali Jaamac gudoomiyaha gudida arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dawlad goboleedyada marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa soo dhaweyntii fiicnayd aanu kula kulannay airportka waxaanu ka cudur daaranaynaa haddii ay tahay gudida arrimaha gudaha oo arrintan hawshan ka socota halkan ay toos u khusaynaysay dib u dhaca nagu yimi annaga oo dalka dibaddiisa ku maqnayn waa ka cudur daaranaynaa waxaan ka mahad celinaynaa soo dhaweyntii iyo habsankii waxaanu ka cudur daaranaynaa habsankii aanu habsaanay waxaanu ka mahad celinaynaa sidii noo soo dhaweeyay waxa aan inta dambe si joogta ula socon doonaa arrimaha ka socda doorashooyinka dawlad goboleedka Jubbaland
annagoo u kuurgalayna wixii naga horreeyey iyo wixii imaka harsanba